قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري أشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. السلام عليكم أصحابتي دوين السلام دمانتي وحين إليها رمضان مبارك رمضان كريم. سؤاله ما نندوت جوابه هذا النوضة إن شاء الله وحرجينا إن أيوفا إذا دونتان أصحابتي نلسي وذا هذا بس إسكوكوبين إن شاء الله وحرجينا إن أفرين تاني هذا أنا أني صدري أتقابل دونتان أصحابتي نلسي وذا دونتان جوابها سي وحاواية معناها جوابات ما سؤالها سمانت أسودي جاي لو سؤالات بس أمالين أصحابتي إنك سو جوابين إن أصحابت بدن كنا كم سو جوابين قارنا ما شاء الله واسكو دايين وحان ليهاي إن اسكو داي وناكسن سا اسكو دايدين ما شاء الله مركو حاواي إنا هذا أدقيين أفرطان وأصحابتي إنا ألسي وذاكتان اسكو داي إن شاء الله إن سؤاشي أقوه الرئيسي وحيهات su-aashu waxay ahayd waxaa sheegtaa magacyadii xayawaanada oo suuradaha qur-aanka lagu sheegay ma suuradaha qur-aanka ay ku jiraan. waxaa waaye jawaabta saxda albaqara oo sax ah, alnaxli oo shinnida ah, alcankabuut caarada ah, annamli oo quraanjada iyo alfiil oo maroodiga ah. waa fahanteen oo umaleynaa albaqara النحل العنكبوت النمل إي الفيل. وحواي الساعة مروديو شنيدو قرانجدو إي عارضو intaas ayaa qur-aanka kariimka ee lagu sheegay xayawaanada magacyadooda ah. su-aasheen xigto nabigii laga soo saaray wadan Afrika waa nabiyullaahi Muusa calayhi salaam. su-aasheen xigto saxaabigii keenay fikradii in god la qodo dagaalkii axzaab wuxuu ahaa saxaabigaasi Salmaan al-Faris. saxaabigii keenay fikradii in god la qodo wuxuu ahaa Salmaan al-Faris. su-aasheen xigta jawaabteen xigta rabaa in aayad qur-aanka ugu yar waxaa waaye tuma nadar suuratul mudaththir ay ku jirtaa. waa tuma nadar suuratul mudaththir ay ku jirtaa aayada qur-aanka ugu yar tuma nadar. su-aasheen iyo jawaabteeda iswadato waxay ahayd waxaa sheegtaa dagaalkii uu ku geeriyooday Cabdullaahi bin Rawaax. jawaabta saxda ee waxay u dhigmantaa dagaalkii Mu'ta. dagaalkii uu ku geeriyooday Cabdullaahi bin Rawaax waa dagaalkii Mu'ta. su-aasha xigta waxay u dhacaysaa qaalataa imsaa qur-aanka lagu sheegay ayadoo alifka uu ku taagan yahay. qaalataa imsaa qur-aanka lagu sheegay ayadoo alifka uu ku taagan yahay. qaalataa imsaa qur-aanka lagu sheegay qaalataa imsaa qur-aanka ay ku jirta ayadoo alifka ku taagan yahay. soore asxaabtayda qaalataa imsaa qur-aanka ay ku jirta ayadoo alifku ku taagan yahay ayadoo lagu sheegay la afka ii jirto asxaabta raali noqdo lagu sheegay qaalataa atayna taa'in suuratul fusilat ku jirta waa laba mar ayaa lagu sheegay qaalataa atayna taa'in suuratul fusilat iyo qaalataa la nasqi in laba mar ayaa lagu sheegay ku jirta qur-aanka ayadoo alifku ku taagan yahay. qaalataa la nasqi waxay ku jirtaa suuratul qasas waaye qaalataa la nasqi suuratul qasas. su-aasha xigta iyo jawaabteeda saxdana waxaa sheegtaa gabiyaagii rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa xasan ibnu thaabit ayuu ahaa gabiyaagii rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa xasan ibnu thaabit. maasha allah asxaabtu waa faa'iideen anna maxaa la dhihi jiray insha allah waxaan iga rabaa iniga hoosna inaa asxaabtiina la wadaagtaan oo ada bisa isku koobin adiga ay dhegeysanahaayo asxaabtaada la wadaag
sheertu ku qaba like dhac ku sii in ajir ayaa ka helay waayo adiga oo ki kala waxyaalo diin ku saabsan ayaa faafisay maasha Allah marka waxaan rajeynayaa wixii oo fikradda dhinaca comment inay ugu soo reebtid soo dhawaada in ilaahay asxaabtii ugu cusub soo dhawaada subscribe kana saara maasha Allah ku hore nolol joogeen waxaan leeyahay sidoo kale idinkana soo dhawaada dhamaantiin waxaan leeyahay gacmo jir ay wax ku one love